waxaana wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta cusub ee sheekada la magac baxday sheekadii kun habeen iyo habeen oo aad marar badanna weydiiseen. hordhaca sheekadani waxaa tarjumay saaxiibkii cabdiraxmaan xasan anteeno annagoo ka jawaabayna codsiyo badan oo asxaabteenna qiimaha badan ay noo soo dirayeen toddobaadyadii ugu dambeeyey iyo tan iyo markii sheekooyinkii hore aan soo bandhigaynay ayaan ugu dambeyntii go'aansanay inaan soo gudbinay sheekadii ugu xiisaha badneed ee qalin loo qaatay sidoo kalena sheekada loogu akhriska badan yahay uguna caansan caalamka. sheekadani sanadkii 2018 ayuu qaybihii ugu horreeyay uu tarjumay saaxiibkii cabdiraxmaan xasan anteeno oo uu ka sii deyn jiray qaar ka mid ah mareegaha websaytyada af Soomaaliga ku baxa. balse cabdiraxmaan wuxuu ii sheegay in qolo uu ku tilmaamay inay yihiin qowleysato ay sheekadii koobi ay ka sameeyeen kadibna internetka ay geliyeen iyaga oo sidoo kale xitaa application u samaystay sidoo hadalka u dhigay saaxiibkii cabdiraxmaan xasan anteeno sheekadaas oo mid qabyo ah. markii sheekadaasi uu arkay ayuu cabdiraxmaan hakiyay tarjumaadda sheekada sabab la xiriirtay xatooyo uu sheegay in lagu sameeyay sheekadii isaga uu tarjumayay iyada oo xitaa ay adkaatay in xuquuqda tarjumaadda ay siiyaan anteeno. haatan waxaan doonaynaa inaan dib u bilowno dhammaan tarjumaadda sheekadaasi annagoo ka jawaabayna codsiyo ay dadkeenna ina soo weydiiyeen taasoo ku xidhan barteenna YouTube-ka ee Marcadda TV. haddaba waa maxay sheekada kun habeen iyo habeen? waa sheeko la isku khilaafay asal ahaan halkay ka soo jeedo. dadka qaarna waxay qabaan inay ka soo jeedo boqortooyadii Saasaan oo xukumi jirtay Hindiya iyo Sandi, halka dadka taariikhda wariye qaarkood ay leeyihiin waxay ka dhacday gudaha dalka Ciraaq. sidoo kalena waxaa la sheegay inay ka dhacday gudaha dalka Masar, xitaa Yuhuudda waa lala xiriiriyay. yacni halkaasi waxaad ka fahmaysaa sida la isugu khilaafsan yahay halka ay sheekadani ay ka dhacday, iyadoo dal walba uu sheegtay inay dalkiisa ay ka dhacday. waana arrin dhif iyo naadir ah inay sidan oo kaleenta ay dhacdo, balse waxa ugu wacan sheekada oo ah mid aad u xiiso badan. laakiin arrinta xaqiiqda u dhow waxay tahay boqorka ay sheekada ay ku socoto ee lagu magacaabo Shahriyaar inuu xukumi jiray meelo Aasiya ka mid ah. sheekadana waxaa ku jira qisooyin badan oo aan caadi u naqaano, sida qisadii Calaa-udiin iyo Faynuustiisii yaabka lahayd. waxaa sidoo kale ka mid ah sheekadii Cali Baaba iyo toddobadii safar ee badmaaxii weynaa ee Sanibaad. ilaa haatan lama yaqaano qofkii asal ahaan qoray sheekadan, laakiin casrigii dahabiga ayaa khilaafadii Cabaasiyiinta ay sheekadani laga soo tarjumay markii ugu horreysay. sidoo kale waxaa Ingiriis loo tarjumay sanadkii 1704. imise luqadood ayay sheekada ku qoran tahay? ma jirto luqad caalami ah oo aysan sheekadani aysan ku qorneen, waana sheekada loogu akhriska badan yahay caalamka. waxaana lagu tarjumay luqadaha Carabiga, Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Griiga, Isbaanishka, Bortuqiiska, Jarmalka, Swedishka, Danishka, Raashiyaanka, Scotland, Poland, Hungary, xitaa afkeenna hooyo ee Soomaaliya ay ku qoran tahay. sidoo kale waxaa jira filimaan iyo musalsal caan ah oo sheekadani laga sameeyay. ma runbaa sheekada kun habeen iyo habeen? waxaa xaqiiqo ah inuu jiro boqorka Shahriyaar iyo sidoo kale xaaskiisa Shaharzaad, laakiin waxaa la isku khilaafay in sheekooyinkani meesha ku qoran ay ka sheekaynayso Shaharzaad in ay yihiin run iyo in kale. waxaase u badan tahay in qaarkood ay yihiin sheekooyin qiyaali ah oo hab aad u macaani oo si farshaxan leh loo qoray, sida sheekada Cali Baaba oo aan dib ka tarjumi doono iyo sheekada badmaaxii weynaa ee Sandibaad. sidoo kale sheekadii Xamaaligii iyo sidoo kale gabadhiisa oo sheekada ku jirta. waxaa kaloo ka mid ah sheekada boqor Yoonaan iyo sidoo kale ninkii xaakimka ahaa ee Rooyaan la dhihi jiray. waxaase ku jira sheekooyin xaqiiqo ah sida sheekooyinkii ay ka warinayso boqorkii caadilka ahaa ee Haaruun al-Rashiid iyo sheekooyin kale. waqti intee leeg ayay sheekadani soconaysaa? sheekadani waa mid aad iyo aad u dheer, waana mid ka mid ah sheekooyinka ugu dhaadheer ee adduunkani laga qoray. gabadha sheekadani warinaysa ee Shaharzaad waxay ku qaadanaysaa kun habeen iyo habeen, inkastoo buugaagta qaar lagu soo koobay inay gaarayaan ilaa 200 oo habeen. sidaasi daraaddeed annaga xitaa ma naqaana muddada ay socon karayso, laakiin waxaan rajaynaynaa inay gabi ahaanteedba iyada oo tarjuman aan soo gudbinno. waxa ugu muhiimsan ee la hubo ayaa waxay tahay inaadan marnaba sheekada ka caajisaynin oo midba midka ka dambaysa ay kasii macaan tahay. daqiiqadna dadka kama caajisaan inay akhristaan. waxaana bilowga hore sheekada ay noqon doontaa kuwa iska hordhaca, iyada oo qaybaha dhexe la qabsiga sheekada iyo macaanideeda laga dhadhamin doono. haddaba waqtigee iyo qaabkee ayaan usoo tabin doonaa sheekadan? sheekada iyadoo cod ayaad maalin kasta kala socon doontaan insha Allah haddii qadarka eebe uu noo suuro geliyo Marcadda TV oo ah barteena YouTube-ka, iyada oo tafaftiran sidoo kalena xalqo ama qayb ayaad daawan doontaan
maalin kastaana waxaan isku dayi doonaa hal xalqo ama hal sheeke inaan idinla wadaagno. haddaba gabagabada waxaan rajaynaynaa in uu Alle subxaanahu wa tacaala inoo fududeeyo tarjumadda qaybaha ka dhiman sheekada iyo tabinteeda. waxaa kaloo aan rajaynaynaa adinkana inaad ku dhiirigelisaan saaxiibkeen Cabdiraxmaan Xasan Anteena tarjumista sheekooyinkan iyo kuwo kale oo xiiso badan, maadaama uu jecel yahay inta badan afkeenna hooyo inuu ku qoro mid ka mid ah sheekooyinka loogu jecel yahay dunida iyo kuwo kaleba oo aan idinla wadaagi doonno insha Allah. waxaan rajaynayaa in idinkana inaad la wadaagi doontaan oo aad sheergarayn doontaan sheekada saaxiibadiin si ay u gaaraan, gaar ahaana dhanka baraha bulshada. waxaa kaloo aan idin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo meel walbo aad dunidan aad ka joogtaan. maalin kasta 4:15 galabnimo ayaan isku dayi doonaa inaan idinla wadaagno sheekadaani qaybaha ugu xiisaha badan. ma ku taamaysa weligaa inaad dhegaysato sheekada 1000 habeen iyo habeen oo dhammaystiran? waan idinla wadaagi doonaa insha Allah. annaga oo caafimaad qabno iyo adinka oo caafimaad qaba ayaan Alle ka baryaynaa inuu inoo suurtageliyo tabinta iyo la socodka sheekadan. anigoo Maxamed Ciise Marcadda ayaa kula socodsiin doona. dhanka tarjumaadana waa saaxiibka Cabdiraxmaan Xasan Anteeno, adiguna waa dhegaysiga. mahadsanid. waa inoo qaybta koowaad insha Allah.